muqdisho dhulboobkii dib ayaa xamar uga curtay guryo burburintii dib ayaa loo bilaabay guddigii madaxweynuhu magacaabay ee mataqaanaa uu ku jira ninkii la yidhaahdo sheekh yuusuf tuurxu madaxdu ahaana waa la caburiyo buula laga dhigay maanta injineer cumar aftoojo dhulkiisii damanyaalaha sharciga ahaa ee soorikey waaba la dhisanay dabaqa laga dhisanayba maxkamadaana tin lama dhisi karo ogow dhulkaas ninkaas askar maxkamad soo xukuntay sharci uu ahaa dhulkii garaad cali garaad jaamac garaad cali aabihii dhulbahantaha damanyaalihii soorikey waa la boobay dhul kasta oo sharciya maanta waa la boobay dib baa loo bilaaba cagafki dib bay u howlgasho maanta shaqadii waa socotaa dadka waxaa laga dhigayay micnaha guddi baa la magacaabay ha loo tago guddiga halkiistaba qaban halkiis cid dhegaysatay iyo qof dan kale male maanta soorikey sideediiba boobka u socday tarabuunka sidiisuu u socday filla baydhaba sidiisuu u socday meel kasto dhulkii boobkii siduu soo laabtay waa qodobtaas arrin kale ayuu sheegayaa habargidir caawa shir bay u fadhidaa dal iyo dibad shir bay leedahay habargidir caawa war ka soo baxayaa dagaalka mucaaradka ma ku biiraysaa habargidir bus waa ka joogaysaa go'aankeeda caawa soo baxaya anaa idin hay warka way fadhiyaan waxa weeye laakiin nimankii artay abgaal iyo nimankii mursade iyo nimankii macali dhiblaabe wax weyn baa ku dhacay xala waa la isbaaxsaday waxaan adduunkaba ka dhicin hubkii qabiiladu ay lahaayeen hadda ka hora maxaakiimta qalad gashay hawiyo hub fiican haysta hubkoodii bay burburiyeen maanta waa aragtaa waxa taagan maantana hubkii qabiiladu ee markii waxaad sheekshala farmaajada dagaala lagu badbaaday yuu maanta rabaa shalay hubka hadda kursiga ninkan uun laba goorro moogtaa adiga dowde dadka inta laa yidhaahda madaxweyne aska ah xitaa mar baa laga tuuri doonaa moogta marka laga tuuro ee hubkii lagu difaaci lahaa way wuxuu maanta baabi'inaya madaxweynuhu waxa weeye markaa abargiir shir baa u socda war baa ka soo baxaya laakiin xamar waxa ka socdo uma eka nidaam oo dowladeed uma eka waxay u eg tahay xoog sheegasho qabqab wixii hore soo daawo jirnay isu awood sheegasho reer hebel halbahdilo harta abgaal ha la celiyado guryaha laga dudumiyo ganacsigooda ha la galo waxaa sida dagaal sokeeya unbaa laga filan karaa wax kaloo ka soo baxaya male agoonyar gaabaan kaa aqaanaa waddadii galaya ilaahay gu ogyahay ganacsigay gelayaan agoonyar taagnaan ma hadduu taagnaado dhigahaasaa la ii dulina agoonyar duu aarsan waayo macal dhiblaa waan aqaanaa fiirso waxay sameeyaan habargiiri mursade oya afka biyo uga buuxeen marka dowladahan oo federaalka aniga waa joojiyey siyaasi inaan dhaho hebelaa fiican hebelaa xun waxaas ani waa joojiyey sababtoo ah siyaasiga si kastoo aan u bumbuunino si kastoo u soo dhisno markuu kursiga helo kuma yaqaanaba marka maxaad isu gelinaya waqti fara badan waxa idin sheegay waxaa weeye soomaaliya marxalad adag gashay xaalad adag ee soomaaliya wajahday waa ogaan doontaan xaalad adagay wajahday waxaana dhici karto ciidamada inay gadood sameeyaan waxaan hadda howlgallada lagu sheegay taliyaasha aadan dheere iyo ku faraxsan yihiin iyo macallimahadii laakiin ciidamadu kuma faraxsana ciidamadu afkaa biyo uga buuxaan jahayni la cihi saraakiil jahayso waxaa dhici karta in isbeddel kale oo dafinayna uu ka dhaco muqdisho marka waa ka war sugaynaa laakiin halka qodoba rab u soo gala wuxuu ahaa life baan rabaa inaan soo galo right now aadala hadlayo hadda life u socda tiktok laakiin qodobka u soo gala meesha wuxuu ahaa inaan idiin sheego in dhulboobkii uu xamar iyo barakicintii ay dib uga bilaabatay oo hala joojiyadii madaxweyne xasan sheekh ay ahayd dadka lagu seexinaya mooye hawsha hadday kow tahayba haddiiba injineer cumar aftooji gurigiisa maanta loo dhacay meel la dhaafaya ma jirto cid la dhaafaya dadka hadda habargiisa waa faraxsanta qaarkood abgaalkii baa isbahdilahaya wiilasha iyadii baa bahdilaysa doofaarta dhashay haa laakiin habargiiray xabadda kuma socoto futada abgaal iyo mursade futadiina ku socotaa idinkana haddaa arkay guryihiinna haddaa arki doontaa guryihiinna hadalkayga qora haddaa nin filosofiyo yaqaano saxaafadda muddo ka shaqeeye ahay haddaad arki doontaan ogaada waxa dhaco waa daara caso dhaa dabaysha geeda umar ciyaarsiiso ha biqlayso